deeq lacag oo aanu gaarsiinay hooyo Faadimo Warsamo Faahiye isla mar ahaantaasna degan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal iyada oo gacanta ku haysa laba wiil oo madaxa ka xanuunsanaya sidoo kale qoyskaasi waxa ay haatan bilaabeen in ay dhistaan suuli ama musqul balse dhameystirkiisu uu u baahan yahay in la caawiyo isla mar ahaantaasna qoyskaasi laga kaalmeeyo in ay suuligaasi dhameystiraan maadaama uu suuligu yahay mid aanay nolosha bini'aadamku ka maarmaynin gargaarkan la gaarsiiyay hooyadani ayaan ahayn kii ugu horeeyay balse waxa uu ahaa mid soo socday waayadii ugu dambeysay waxaanay hooyadaasi bulshada ugu baaqday isla mar ahaantaasina ay ka dalbatay in wixii karaankooga ay ku soo caawiyaan maantana waxaanu gaarsiinaynaa deeq $150 Mareykanka oo ka timid walaal ku dhaqan dalkaasi Copenhagen Denmark waanu guddoonsiinaynaa biidnillahi kariim ilaahayna waxaan uga barinaynaa lacagtaasi u barakeeyo isla mar ahaantaasna bal wuxuu ay ku qabsato oo ay wax ugu tarto bal hooyo Faadimo Warsamo soo dhawaad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان جبيجود مالك استوي جوجان دل كاش شرفت على وحي صادري والسلام يا سلام لبو سلامنا سلام تقول قيمية قايمة بدن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإسلام كأي مسلم يا عفمات سراعية إمبردرنا ونيله ونخرجينيا يؤبد كوب إيمان خير الله سيه كو إيد دانا يا اللي يرتاح خير كان سدا يصلك بانو يا إلهي أبريا marka aad baan u dhibaataysanahay dhibaataysnaade wixii maartay deeqaha kala duwanaa ay soo gaaray si fiican baan ugu qabtay wax nafaqadooda haday tahay beetilmeedii oo bilaabo imika ay socdo ay tahay marka aad baan ugu maartay inii mahadnaqaya maba heli karaba anu waxa soo dhibaato oo maartay kale mar een oo guriga ugu mana wal kala dhabaayay wad iska garanaysaa nimanka waa mid 25 jir mid waxa weeyaan 20 jir wad garanaysaa rag waaweyn oo maartay halka kuugu xiran dhibaatadooda marka hooyaad baan nii salaamaya waxaan ka codsanayaa meel kasta joogto bulshada Soomaaliyeed inay ii soo kordhiso inay maartay meelan ku hayo xitaa cilmigoogaas iga soo saarto beetilmeega ay dhisto maartay gacan khayr leh oo cibaado leh oo wanaagsan ay soo diraan walaalahay meel kasta ay joogaan si kastaba ha ahaatee waxa xusid mudan mashquushaasi ama suuligaasi uu bilowgiisu uu haatan meel wanaagsan marayo balse weli waxa dhiman isla mar ahaantaasna qabyaha in la dhameystiro waxaana sidoo kale jirta in suuligaasi mararka qaarkood uu qodo wiil ay hooyadaasi dhashay maadaama dhaqaaluhu u saamixi waayay haddaba kadib markii aan deeqdaasi lacagta maanta gaarsiinay waxa suurtagal ah in hooyadaasi ay u yeerato dadka iyagu farsamadan yaqaana suuli aan u dhameystirno hooyadan oo hadda in dhismihiisu socdo isla markaan la qodayo suuligaasi kulay ama mushqushaasi waxay tahay mid dadku kama maarmi karaan marka iyadoo ay sidaas tahay bal inta aanu suuliga u dhameystirayno inaad wixii karaankiina aad nagu soo caawisaan maadaama gurigan aanu marka hore ahayn meel ay dhalinyarada ay galaan oo suuliga ama saxarada iyo waxa la sagashko marka maanta waa alxamdulillah kullu hadii dhismihii ugu horeeyay la bilaabo oo wali qodaalkii baa socda waxa noo haray qaybihii ugu muhiimsanaa ee dhismaha ahaa noo haray marka insha Allah ta'ala dadka muxsiniinta waxaan ku codsaynaa inay nagu soo caawiyaan inaanu suuligaasi dhisno oo aanu dhameystirno si qoyskaas uga maarmo in meelaha kale waxay geeyaan marka biidnillahi kariim taasaan ku codsaynaa Faadimana dayadna way idin sheegi doontaa hawsha iyo say u socoto anaguna aanu dawlad waxaan nii sheegayaa walaalayaal intii horeysay maalintii aad soo dirteen doorkii dhaweyto waan ku bilaabay 7 cisho ayaa la ii qodayay intii way dhamaatay waan ka joojiyay ilmahayga yar oo 15 jir ayaa imka ii qoda marka hadii alla ka dhigo tan maantana waxaan ku bilaabayaa raggii baan ku soo celinayaa dhismihii baan sii qodminkii baan sii bilaabayaa hadii eebateeda leeyahay waxa alla laga helo qayb xadada ugu baaqaysa waxaan ugu baaqayaa dadka khayr kale inay soo kordhiyaan maartay walaalahay si caafimaad qabto ceeb iyo ceeb toon lahayn ay gacan khayr la ii siiyaan dadka muxsiniinta ee qeyrka jecel waxa loo baahan yahay inay caawiyaan hooyadaasi iyo qoyska danyarta ah ee ku nool magaalada Boorama waa nuux kadiya magaalada Boorama